maxaa u sababa furdaaminla'aanta xaaladda cakiran ee muqdisho ka taagan waa amuurta ay ku saabsan tahay faallada warku waxaana wax ka qoray cabdilaahi aadan cumar wayab waxaa muddooyinka dambe ka taagnaa magaalada muqdisho ee xudunta u ah shanta maamul goboleed ee ku bahoobay dowladda federaalk ee soomaaliya loo dhisay arrimo xasaasi ah oo fajac iyo amakaag ku noqday dunida iyo bulshada caalamka gaar ahaana kuwa muddada 30 sannadooda ka taageerayay dhinacyada dhaqaalaha dhismaha dowladnimada dibudhiska ciidamada iyo dhammaanba adeegyada kale ee bulshada kadib markay qoorta isla galeen madaxweyne farmaajo oo muddaxileedkiisa uu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha oo loo igmaday inuu sugo ammaanka sidoo kalena dhammaystiro soomidda doorashooyinka xaajada dhex taalla madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble waxa ay sidii dhulgariirka oo kale mar qura dhexdooda uga qaraxday kadib markuu ra'iisul wasaaruhu xilka uu ka qaaday agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee niisa la yiraahdo oo lagu soo eedeeyay inuu mas'uul ka yahay gabadh ka tirsanayd hay'adda sirdoonka ee agaasimaha ka ahaa oo ilaa iyo hadda raqdeeda iyo ruuxeeda aan midnaba lahayn hase yeeshee waxa tallaabadaasi uu qaaday ra'iisul wasaaruhu si toos uga hor yimid madaxweyne farmaajo oo weli sheeganaya inuu isagu yahay ka kaliya ee awoodda u leh xilka qaadista mas'uuliyiinta sare ee ka howlgala xarunta dhexe ee muqdisho sida wasiirada taliyayaasha ciidamada agaasimayaasha guud iyo kuwa kale ee u dhigma ee ku dhex jira xayndaabka taliska farmaajo ee ku kooban magaalada muqdisho kiiska gabadha Igraan Tahliil oo ka tirsanayd hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya oo muddo ka badan 2 bilood ay waalidkeedu waayeen meel ay jaan iyo cidhib dhigtay isla markaasina raq iyo ruux toona lahaynin ayaa farmaajaha ka taliya muqdisho uu hor joogsaday in cadaaladda la horgeeyo dadka iyagu ku eedaysan dilkeeda oo uu kow ka yahay agaasimihii xilka laga xayuubiyey ee sirdoonku isagoo sida la sheegayna uu farmaajo ka cabsi qabo in dhagarta gabadhaasi daaha ka rogto dhagaro kale oo badan oo ka dhacay magaalada muqdisho oo la waayey meel allaali iyo meel loo raaco oo ay ka mid yihiin qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen mas'uuliyiin sarsare oo uu ka mid ahaa duqii magaalada muqdisho arrinta gabadhani iyo kuwo kale oo huursan oo ay ka mid yihiin doorashooyinka dadban ee la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya dabayaaqada sanadkan ayaa waxa ay dhinacii maamulka dalkaasi gaar ahaan muqdisho ka dhigeen midi ku taag kadib markay madaxweyne farmaajaha waqtigu ka dhammaaday iyo ra'iisul wasaare Roble iska soo daba saareen wareegtooyin iyo amaro dhammaantoodba iska soo horjeeda taasi oo jaawareer siyaasadeed oo hor leh ku abuurtay shacbiga reer muqdisho iyo beesha caalamka ee lugta kula jira arrimaha dalkaasi Soomaaliya waxa kale oo yaab leh in kiiska gabadha oo ah mid ay ku filnayd in hay'adaha cadaaladda faraha looga qaado ayaa waxa dhexdooda laga bilaabay dhexdaacadin ay marar kala duwan galeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood iyo madaxda hay'adaha caalamiga ee ku sugan muqdisho hase yeeshee dhammaantoodba waa ay ku guuldaraysteen waxaana sabab u ah iyadoo runta ay u kala sheegi waayeen labada dhinac ee isku haysta hogaamintii dalka marxaladda kala guurka inkastoo hore farmaajo fadhi golaha shacbiga la iskugu yeedhay uu ku wareejiyey hortooda sii wadidda maamulka dalka marxaladda kala guurka ee xilliga doorashada oo hadda gabagabo ay ku dhowdahay soo xulista xubnihii ka mid noqon lahaa xildhibaanada cusub ee aqalka sare ee Soomaaliya sidaasi si la mid ah ayaanay bulshada caalamku runta u kala sheegi laadahay Somaliland iyo Soomaaliya oo ay u garbaduuban yihiin shacbiga Somaliland muddo 30 sannadood oo ay taladoodu noqotay idinku wada hadla oo dhexdiina ka dhamaysta wixii idinka dhaxeeya hadday hadalka daacad ka yihiin bal ha cadeeyaan cidda wax ka go'aan ee Somaliland wada hadalka lag yeelanayso ma Puntland ba ma Galmudug ba ma Jubbaland ba ma Hirshabeelle ma madaxtooyada Muqdisho mise waa dawladda koonfur galbeed shacbiga Somaliland waxa uu ka tirsanayaa bulshada caalamka ee daneeya arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya cadaalad darro waayo iyagoo si cad uga warhaya xaaladda ay ku kala sugan yihiin labada dal marka laga eego xagga nabadgelyada waxqabsiga iyo ku dhaqanka nidaamka dimuqraadiyadda oo ah nidaam ay dadku ku soo doortaan codkooda ciddii hogaamin lahayd taasi oo ay jamhuuriyadda Somaliland qabsatay 7 doorasho oo hal cod iyo hal qof ah oo ay tii ugu dambeysay ee sanadkan ahayd 2 doorasho oo isa saaran ayaa
haddana wakiilka qaramada midoobey somalilan iyo soomaaliya iyo hay-adaha kale ee caalamigahi ammaan ay kula dulkufaan muqdisho marka ay warbixinaha ka jeedinayaan qaramada midoobey iyo fagaarayaasha kaleba waxaan filayaa hadday wax ka beddeli waayaan siday hadda wax u wadaan ee ka fog runta iyo xaqaa'iga dhabta ah ee taagan in beesha caalamku uu waxqabadkoodii 30 sano ay soo wadeen ku dambayn doono sidii foosha xumayd ee maraykanka iyo reer galbeedka ceebtu uga raacday afghanistan ee ay uga huleeleen iyagoo muddo 20 sannadood ah wakhti iyo lacag balaayiin dollar ah ku kharash gareeyey dalkaasi muddo 20 sannadood ah faaladii warkuna waa nagaynta